munaasabadan oo lagu daahfuriyay talaalka sambabka xoolaha gaar ahaan ariga oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawlad goboleedka Hirshabeelle oo kaashanaysa maamulka degmada Warshiiq ayaa lagu qabtay xarunta degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Warshiiq, wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamulka Hirshabeelle, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee maamulkaasi, bulshada ku nool degmada Warshiiq iyo marti sharaf kale. gudoomiyaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed Shiidka ayaa ka warbixiyay muhiimadda ololahan talaalka xoolaha uu leeyahay. markaan soo dhawaaqay waxay ka shaqeysaa 4 gobol sida arkaysan qoraalka Hirshabeelle ayaa muxuu ahay maanta eber waxaan ku sameey jirnay heer gobol laakiin maanta caawa waxaan ku fulinaynaa heer state. mudana wasiir ku soo dhawaaw Warshiiq. wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dawlad goboleedka Hirshabeelle Cabdullaahi Macalin Muusaf ayaa u mahad celiyay maamulka degmada Warshiiq iyo wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa howlaha caafimaad ee lagu dardargelinayo talaalka xoolaha Soomaaliyeed. wasaaradda kalluumaysiga caawa waa soo qaaday waxaan bilaabi doonaa dadku waxa la sameeyaa meelaha kale xoolaha sidii laakiin waxaan rabaa wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dawlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Xuseen Cumar Cilmi oo ka hadlay ololaha lagu daahfurayo talaalka sambabka ariga ayaa ku booriyay bulshada ku nool deegaanada maamulka Hirshabeelle inay ka faa'iideystaan talaalka xoolaha. kan marka wuxuu ahaa barnaamij oo loogu talagalay in ariga sida ircadka laga talaalo cudurka ku dhaca sambabka. waagii hore waxaa maqli jiray sambab ku dil in dadka la dhaho kale dabcan waa cudur aad u dhib badan marka cudurkaas ayaa laga talaalay. waxaa marka wasaaradda ay dadaal dheer ku bixisay sidii barnaamijkan loo hirgelin lahaa. wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa muddooyinkanba waday dadaalo ay ku dardargelinayso horumarinta caafimaadka xoolaha. Muuse Cismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.